وحويان شكل الرواقيجو ويصاتر ديراتي ومرحلة بدن بيصامرتي دالكن مرحلة بدن بوصامري وحويان جروب مشرحين oo dalkan caqabada ugu weyn ee gobolada waqooyi maanta haysata u taagan 24 saacna kuraastii dhaxal ka dhigay nin walbana meeshiisa ugu taagan ayaa meeshan haysata waxa weeyaan mudane ra'iisul wasaare waxaan halkan ka cadeynaynaa dhalinyaradayada musharaxiintayada cuqaashayada odayaashayada waxaan u taaganahay midnimada Soomaaliya waxaan u taaganahay qarannimada Soomaaliya dad soo shaqo tagay ma nihin wada wala dikaatid baanu nahay we worked a lot of things waxaan ka soo shaqeynay shaqooyin badan absolutely no that's not unfair midnimada Soomaaliya waa muqaddas waa wax soo jiraan soo aha waa wax dalkan iyo dalkan lagu soo kala waday maantana waxaan u taaganahay fresh population educational wax kasta ka dhisan in kuraasta lagu soo wareejiyo ayaanu diyaar u nahay mudane ra'iisul wasaare 5 qof iyo 6 qof iyo 7 qof dalkii dhama iyo dadkii dhama in loogu soo xidhmo absolutely it's not fair international community had noqotay Abdi Hashi is our elder side so ma fahmin waa oday waayeel waa oday weyn maqaamkiisa iyo maamuuskiisa ayaanu ku ixtiraameynaa ku soo dhaweyneynaa ku ixtiraameynaa marjac baanu leenahay marjaceena ula noqonaynaa absolutely 5 qof iyo 6 qof oo dantii dalka gobolada waqooyi baabiye absolutely it's not unfair in loogu noqdo diyaar ugu manihin that's a one thing marka ra'iisul wasaare Roble waanu taageersanahay musharax nin ahna inuu anagana hogaamiyo absolutely no ma u soo taagnin halkaas waana maanta midnimada Soomaaliya waxa rafaadiyay ee lugaha qabtay ee maanta halka u taagan waa dadka midnimada Soomaaliya lugaha haya waa 5 qof ee maanta yaacaysa ee ummadii xiijisay ee cuqaashii xiijisay ee odayaashii xiijisay ee maxaan ku dhalinyaradii la jibisay waxa weeyaan madaxweyne mudane ra'iisul wasaare waxa weeyaan xodxodashadu waa halkeeda ninkii wax raadinaya waa halkiisa laakiin marjaca iyo midnimada waqooyi waa muqaddas ma tahay that's good waxa weeyaan Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya ha israacdo maxaynu joognaa muqaddaskeenu waa maxay that's good marka waxaan halkan uga cadeynayaa in alaaliye intii danaha siyaasadda Soomaaliya danaynaysa waxa weeyaan midnimada Soomaaliya waa lama taabtaan hebel baa mucaarada hebel baa muxaafada absolutely it is wrong midda kale aan halkan qodobka ku daraya mahdi guulad cirka kamu soo dhicin waa nin gobolada waqooyi ka yimid Soomaad gar mudane ra'iisul wasaare Roble aniga Roble waa si qaasa ayuu Roble noo yahay runtaan idii cadeynaya waxa weeyaan mudane ra'iisul wasaare marjaca xodxodashada beenta lagu keenayna absolutely is not fair anagu kuma jirno hadaan nahay gobolada waqooyi taana waa inaan cadeyno waxna meeshan iyo hadal iyo beel la dhuubta meesha ma taalo waxa weeyaan meeshan waxa yaala aynu iskugu nimid waa midnimada qarannimada Soomaaliya waana wax muqaddasa wax la yiraahdo hebel yiri no way shalay hadad maareeyo shalay bay ahayd goobsaar meesha guriga intaad u furatay dadka win and educated kanaad lahayd hebel wadaan ku wata heblaayadaan ku wata dadka shahaadooyinka watana aad dasbiinka ku tuuraysay maadi guulad xaadir buu ahaayo uu taagna aniguna waan taagna bil aadan kalena way taagnaayeen 26 sano kuraasi la iska haystaan possible ma ahan reer rugeeda ka baxdeen ma ahan reer idima yaqaano reer idimu keenin kuraastan ay leeyahay dhaxalbay maanta noqonayaano hebel anigu waan tacbaanay inankayga ama inantayda that's not unfair maadi guulad musharax ma ahan musharax kursi doonaya ma ahan mudane Roble mudane ra'iisul wasaare
maanta dadka kala saari kara waa Mahdi Guuleed mudane ra'iisul wasaare Mahdi Guuleed garabkaaga ka eed Cabdi Xaashi ana ku koota ana ka taagan Cabdi Xaashi dhaxma noqon karo waa Canada that's not fair